المؤمنين عائشة markii ay ka warramaysay qaabkii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam loogu soo dejiyey muxuu ahaa diinta inamaa nazal awal maa nazal suuratu min almufassal wixii ugu horreeyey rasuulka sal ly slam lagu soo dejiyey waa suuradihii gaagaabnaa fiiha dikru ljannati wannaar oo ku dheehnaa ama ku xusnaa jannadii iyo naarti xataa idaa haaba annaasu ila alislaam markii dadka ay usoo noqdaan islaamka iyo diinta islaamka nazala alxalaalu walxaraam markaasaa waxaa la soo dejin jiray xalaasha iyo xaraamta lidaalika caaisha waxay ku caddaynaysaa hadalkeeda haddii la dhihi lahaa dadka marka ugu horreyso war khamrigaa cabina laqaaluu laa nadacu alkhamra abadan maba deynaynaba haddii la dhihi lahaa laa taznuu laqaaluu laa nadacu zina abadan liannu ma isugu xirna in ilaahay subxaanahu watacaala dadkan inay rumeeyaan iyo waxyaabahan ka dhalanaya ahmiyadda ay leedahay towxiidka in laga bilaabo ayaa waxay tahay in aadanuhu ay iskugu xiranto ilaahay subxaanahu watacaala markii uu rumeeyo in nolosha dambe markii aakhiro la tago waxa uu ku waari doono ama uu ku sugnaan doono